asalaamu calaykum kusoo dhawaada casmi spreadsheet academy goob lagu barto xisaabaadka gaar ahaan microsoft excel. fadlan walaal haddii ay tahay xilli salaad marka hore tuko salaada. waxaan ku galaynaa casharkeeni saddexaad. hore waxaan soo qaadanay casharkii labaad. casharkana waa casharkii labaad ayuu daba socda ama taxanihiisi yahay. waxaan qaadan doonaa waxa la yiraahdo qaybta pointiga ayaa mar labaad ku laaban doonaa. grade line-kiina waa soo celi doonaa. soo marka highlight aan saari doonaa meeshaan saan uga bedelno pointiga waxyaabo kaleeto. saa hore kugu sheegay waxaa ka dhigi kartaa bold farta waaweynay kartaa. soo markaad uma baahnayn waayo title-ka ayaa farta waaweyn ku qornay. soo marka qaybtan hoosena ku qori mayno. waxaan kala sameyn karaa waxa la yiraahdo italic chief ay ka dhigaysaa ujeedin. haddii aad u baahan tahay ama aad marar qaar u baahato inaad fartaada italic-kan ka dhigto ama chief-kan ka dhigto halkaas ayaad ka dhigi kartaa. sidoo kale waxaan ka dhigi karnaa waxa la yiraahdo underline oo hoosta ayaan ka xariiqi karnaa. soo marka haddii hoosta ka xariiqno qayb kasta hoosta ay ka xariiqmaysaa ujeedin. hadda laakiin uma baahnayn. sidoo kale wuxuu leeyahay double underline laba jeer hoosta ka xariiqaya. soo marka waxaan baran doonaa mararka aad u baahan doonto double underline-kan iyo sidoo kale underline-ka iyo italic-ka insha Allah casharada socota ku qaadan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. waxaan gelinayaa qaybtan alignment-iga. qaybtan waxaa ujeedin waa point. waxaan gelin doonaa qaybtan alignment-iga. alignment-ka fiirino tusaale ahaan hadda soo ujeedin lambarka marka walba aad lambar qorto tusaale ahaan halkan ku qoran 9 soo ujeedin wuxuu aadayaa qaybta midigta. lambarku weligiis wuxuu xigsan doonaa qaybta midigta. hadda halkan qoraal ku qoro aan iraahdo school oo aan inta iraahdo soo ujeedin wuxuu xigsan doonaa qaybta bidixda. soo markasta waxaad la soo ogaataa in haddii aad qoraal ku qorto cell-ka ama wuxuu xigsanayaa qaybta bidixda. haddii aad lambar ku qortana wuxuu xigsan doonaa qaybta midigta. hadda waxaan sameyn doonaa alignment-iga. alignment wax kale maahan saddexdan hoose soo ujeedin waa left-iga align left soo ujeedin. haddaad rabto qoraalka inuu xigsado qaybta bidixda. haddii aad rabto qoraalka inaad keento qaybta center-ka ama dhexda. haddii aad rabto qoraalkaada inuu aado ama aad geeyo qaybta midigta. hadda tusaale ahaan waxaan rabnaa English-ka ama galaaska ardayda ay dhigtaan inuu tago center-ka. soo markaan highlight oo saarno qaybta imaanayna center-ka aan kala ku sahaynaa. soo ujeedin English-ki ama galaaska ardayda magaca ay dhiganayeen wuxuu imaaday center-ka ama bartamaha ama dhexda. sidoo kale lambarkan keeni karnaa center-ka kaliyan ku siinaa sidoo kale waxaan geey karnaa midigta meeshii hore ku celi doonaa center-ka geey karnaa bidixdan geey karnaa soo ujeedin. soo marka meesha aad doontid ayaad geyn kartaa adiga ay kugu xiran tahay marka project aad sameynayso ama shaqada aad haydo qaabka aad u rabto design-keeda. waxaa ku xiga oo ayadana la xiriirta soo ujeedaan 9-ka haddii aan soo dhaweeyo laga yaabo inaad arki karin si waadaxa. haddii aan soo dhaweeyo halkan aan keeno waxaad arkaysaa 9-ka in diilinta kore iyo diilinta hoose labada xuduud kor iyo hoos inuu inta badan u dhow yahay qaybta hoose. sababtoo ah haddaan dul tago horta center-ka uu joogaa marka koobaad. marka labaadna wuxuu joogaa bottom align qaybta ugu hooseeda uu joogaa. hadda center-ka geeysa u jeedin hadda bartamaha ayuu joogaa. sidoo kale waxaan geey karaa up ama qaybta kore u dhawey karaa. soo marka inta badan waxaa la isticmaalaa center-ka si uu qoraalkaadi u qorxonaado ama uu noqdo mid waadax. sidoo kale waxaa jira laga yaabaa inaadan rabin midig iyo bidix. laga yaabaa inaad u baahan tahay in aad wax yar uun sikido. soo marka option kale ayaa jira soo ujeedin halkan soo ujeedin decrease indent. hadda qaybtan ku sii click soo ujeedin waa soconaya qaybtan wuxuu aadayaa midigta. hadda mar labaad ku daro midigta aadaya. soo marka waa soconaya. soo marka qiyaastaada u baahan tahay halkan ayaad ku ogaan kartaa. laga yaabaa inaad u baahnay inaad qoraalka dhan bidix wada geedo qoraalka dhan inaad dhexda wada geedo ama aad geedo qaybta midigta. waxa laga yaabaa inaad u baahan tahay oo kaliya hal mar oo meesha uu ka durgo. soo marka waxaad isticmaali kartaa waxa la yiraahdo increase indent ama decrease indent. marka waxaan filayaa inaad fahantay qaabkaas ugu shaqeeyo alignment-iga. waxaan filayaa inaad ka faa'iido casharkan tan iyo casharka xiga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.